الله أكبر. waxaa maanta aas qaran magaalada Muqdisho loogu sameeyay agaasimihii guud ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya marxuum Maxamuud Xirsi Cabdulle Indhacase oo shalay ku geeriyooday weerarkii lagu qaaday xarunta looga arrimiyo dowladda Soomaaliya ee madaxtooyada waxaana lagu aasay dugsiga tababarka ciidanka booliska ee General Kahiye iyadoona isla goobta lagula tukaday salaadii jinaasada aaska marxuumka ayaa waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Cabdiwali Sheekh Axmed Maxamed ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid xildhibaano wasiiro iyo xubno ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ra'iisul wasaare Cabdiwali Sheekh oo goobta aaska ka hadlay ayaa tacsiin u diray qoyskiisa qaraabada iyo ehelada marxuumka waxa uuna xusay in marxuumka uu ahaa shakhsi daacad ah isla markaana naftiisa u huray qaranka Soomaaliyeed isagoona carabka ku adkeeyay in weerarkani aanu dib u dhac ku keenin doonin go'aanka dawladda ee ah in sanadkan dalka laga sifeeyo xarakada al-shabaab. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannada firdaws ka waraabiyo u dambi dhaafo ummadda Soomaaliyeedna uu samir iyo iimaan ka siiyo. maxamuud wuxuu ahaa nin aqoon-yahana oo aad dadku ay ugu tilmaamaan aniguna aan ku aqoonay karti daacadnimo aadaab iyo hufnaan wuxuu ka mid yahay dad badan oo Soomaali ah oo iyagoo nolol haysto dibadda jooga yimid dalka si ay ugu gurmadaan u soo gurmadaan dalkooda waxa uu ku shaqeynayay si voluntary ah ama nafti huraanimo ah isagoo doonayay inuu dadkiisa dhibkay ku jiraan sidii looga saari lahaa uu gacan ka geysto ilaahay ha ka abaal mariyo annagoo dhanna sabir iyo iimaan Allah naga siiyo nimanka nabadiidka oo dilaawayaasha ah dilka maxamuud iyo howlaha kale fadqalada ah ay wadaan ma noqon doonto mid naga joojisa go'aanka ah inaan runtii ka takhalusno oo aan ka cirib tirno dalkan oo ummadda Soomaaliyeed ay nabad u fariisato nagama niyad jabinayso nagama cabsiinayso haddii ay sida u fakreenna way khaldameen wayna arki doonaan inay khaldameen waxaan sii wadi doonaa dadaalka iyo dagaalka aan ugu jirno ummaddu inay nabad hesho. Maxamed Bilagele, Somsa TV, Muqdisho.